qoyska Ashantalis ee degay ismaamulka Garissa ayaa eedeymo u soo jeediyay gabanaha ismaamulka Garissa Cali Qorane iyo qaar ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladdiisa. Qoyskani ayaa sheegay inay cagajugleen iyo cadaadin fara badan kala kulmeen dowladda uu ka arrimiyo Mudane Cali Bunow Qorane kadib markii ay codsi u dirsadeen Mudane Aadan Barre Ducaale. qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda Garissa oo u dhashay qoyskani Ashantalis ayaa loogu cagajugleeyay in shaqada laga joojin doono haddii ay sii wadaan codsiyadan u dirsanayeen Mudane Aadan Barre Ducaale. annaga waxaan nahay reer la yiraahdo reer Ashantalis ee Garissa degan meel kastana waa nagala yaqaana caalamka jariirood meesha la dhaho ayaan deganahay oo u xoog leenahay maadaama magaalada Garissa baan deganahay aniga waxaan ku hadlayaa gabdhaha reer Ashantalis afkooda waxaan rabaa inaan u sheego madaxda Garissa County madaxda National Government Mheshimiwa Aadan Barre Ducaale Mheshimiwa Cali Bunow Qorane waxa idin sheegaya annaga reer Ashantalis hadaan nahay beerti aan lahayn ee jariirood noogu taalay inay qaadato cid waata la dhaho beertaanada waa taa qaadato waatadana waa laga gatay iska may qaadan waa laga gatay waxa ka gatay nin la dhaho Cabdirashiid Maxamed Kaleele beertaanada Cabdirashiid sababtu ooga gatay waata sida ugu dhaqsiyaha badan ha nooga soo jawaabo mideeda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo shacabka iyo Cali Bunow Qorane ninka la Mheshimiwa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta Garissa ma Cabdirashiid Maxamed Kaleele waa gafana ka ama Cali Bunow waa gafana ka waa su'aal is weydiiyo Cabdirashiid Maxamed Kaleele anytime dadku wuxuu ugu goodiyaa ninka reer Ashantalis oo beerta ka hadlo county government waa laga tiri wiilish county ka shaqeeyaan payrollka waa laga wada saari waa ugu goodiyaa haddii Cabdirashiid uu asaga Garissa county uu gafana ka yahay wiilisha Garissa ka shaqeeyaan payrollka laga wada saaro Cali Bunow Qorane waxaan rabaa inaan ku sheego wiilisha reer Ashantalis ee county ka shaqeeyaan just now laga bilaabo maanta right now aan taagan aan kula hadlay laga bilaabo wiilisha reer Ashantalis ee county ka shaqeeyaan nina Cabdirashiid kana ku shaqeyn karo malo yotta shaqada ka wada tirbeeralka ka wada baxan because mas'uul ba madiidba Cabdirashiid Maxamed ba mas'uulka oo ku taliya Cabdirashiid anaga reer Ashantalis hadaan nama masalo gabar dhagax hata uu nooga xun yahay anaga nama masalo haduu adigu masalo afhayeen uu ku yahay anaga afhayeen oo ma aha Cabdirashiid mana namasalo nagamana socdo wiilisha reer Ashantalis ee loogu goodinayo county ka shaqeynayeen ee loogu goodinayo payrollka waa ka bixaysin hada beerta jariirood aan ka hadashiin oo waatada u tagtiin loogu goodinayo waxaan rabaa laga bilaabo maanta wiilisha inay payrollka ka baxaan Cabdirashiid wiilisha payrollka ka tiro Cali Bunow Qorane adiga wuxuu kugu imaado hadii loogu goodinayo dadka payrollka laga bixin loogu goodinayo ka bixiyo wiilisha payrollka laga bixiyo waxaan mahad u celinayaa ilaahay baa mahad iskale ilaahay ka sago Mheshimiwa Aadan Barre Ducaale waa mahadsantahay walaalo cod baan ku dirsanay codka waa nooga soo jawaabtay si fiican baad noo tixgelisay walaal waa mahadsantahay waana ku mahad celinaynaa in badan meesha hadda aad taaganta iyo meel ka sii fiican ka sii ambaqaad garabkaadana Allah galo waxaan ka codsanaynaa beerta inaa waatada nooga kiciso oo meesha gaashaanbuur aan nooga samayso oo nimanka anaga hor istaagto annaga waata shan wiil oo baangada qaadata wiil goysiin kartaa waxba lama oho laakiin waxaan diidaynaa dhibka iyo dulmiga iyo dagaalka midda labaysan ninka la dhahay Cabdirashiid Maxamed Kaleele aqoon dheer baan ku leeyahay ani hadda saacada meesha taaganta waan arkayaa yadabna isku yeel isluumna isu yeel waxyaalaha meelaha la taagan tahay ee wiilasha dadka maxasta caawinayeen aad soo caayni ee miidiyada aad la taagan tahay ee manamini aad leedahay anaga horta agtaayni waxba kama tiid reer ka soo horeeyo Ashantalis agtooda horta waxba kama tiid nin aad ku soo hor qaadi oo reer baa iga dambeeyay aad leedahayna ma jiro waa un adiga kaliya aad ku kooban laakiin waxaan ku sheegi waxaad meelaha la taagan tahay oo la caytamayso oo tu adiga ku taalo Cabdirashiid hadii lagu dhaho danahaada ku hadal ee danahaada ku daal hadaa dadka masaakiinta wax u taraynin waxa ma aragtay in ajaa'ifaynin dadka oo reer jariiroode hada la yiraahdo reer Ashantalis laaro waxa jirta inaan cod u dhiibanay Aadan Barre aan u diranay oo dhibkiina haystay xagga beerta oo colki warkii asaga ahaa dad baa ka xumaaday nin la yiraahdo Cabdirashiid Kaleele la yiraahdo county-na ka shaqeeya lana socda Cali Bunow yaa meeshii soo galay oo dad caay beerta inuu asaga ka dambeeyo hadda aan u maleeyay colkan soo galay
arrintaa iyada aadaan ooga xumaanay wiilka cabdirashiid ligaha jinni iyo jaan iyo insi iyo jin wuxuu yahay annaka ma garanayna weligaa inaan ammaan ark ninkaas ninka uu la socdana annaka waxba naga mahelaay waxaan rabnaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo colkan maanta nahaya waa cid waata la yidhaahdo gidigaa fadhido annakoo iska reebi karno sidii quraanjadii lugta u saari karno tixgelin dowladda ay leedahay baan u reereebaynaa ama aan gacanta ugu qaadi laana waxaan rabnaa intaa gaarin ninka la yiraahdo aadan barre ducaale horna aan u dooran jirnay oo embiga annaka meesha noo xil saaran ba ahaa inuu meesha wax nooga qabto oo aad nooga dadaala meeshaas dib baa ka soo socdo intaasaan u baahannahay midda labaad annaka waxaana reer jariirood weligaan kuuraha waxaan siin jirnay aadan barre nin kale adduunka inoogumaan ridin midda labaad haddana asaga baan u xaraysanna waxaan rabnaa saan asaga u xaraysanna inuu asaga wax noo qabto tii aad xalay noo soo majibtayna aad baan kuugu mahadinaynaa waana ku garab taagannahay mar walbana waan ku garab taagannahay maanta waxaan meeshan annaka isku soo qarash garaynay oon cod kuugu soo dirsanhayna waxaa waay meesha inaad naga saarto meel oo dawladda barkeeda meel aad nooga saarto oo gadiga nogala soo gudbin gabdhihii badada way gali laayihiin habeen kasta walwal ay ku bareen shalay afarto rag uu aad way afar gabdhood la soo fiiji xoolihii way ooman yihiin malkadii way reebteen hubbay la soo gudbeen taasaa jirtaa aadan barro waa mahadsan tahay mar walbana waan ku garab taaganna horaan waan ku garab taagneen cabdirashiidna meel ha nagala saaro waa taduu la heshiiyey muxuu dhahay maxaa cod u duubaysiin dadkuu soo caynhayaa bannaanka banka dhalay ninka hanaga mara ma rabna wuxuu yahay nam ka sayno marka ninka cadowga oo beerta ayna duminahayo ishaan talis kala dila oo mid walbaba geed ku xira waa cabdirashiid kale leh ninka asagana wuxuu ka tirsan yahay governor county-giisu jooga waa ninka noo soo goodinaya annaka saacad loo soo duubay codku waan duuban karnaa annaka fursad aan leenahay waan cawan karnaa cabdirashiid fadul baata aad baad u qaldan waad dardaranta waana aqlaaq xunta aqlaaq xumadii meelaha la taagantano jooji waxaad masasho malaaday sheekada sidii naagaha ma aragta sheeka bilcaan baaba dhaaftaba fidmana bilcaanaba iska daasaba rag boqolow aminkan uu fidmo ka taliyo talku isku dhumiyo waa laga fiican adi naftaa dankuuma ohoba samiicadaada way dhimatay dadka islaamka samiicada ka dilin cali bunow qorane waxaan u sheegi samiicad anduk inuu ka hadlay aad rabto cabdirashiid kolay had wax baad raadsanay wajal wax ku raadsato ma yaalee meesha intuu cabdirashiid ku hor socdee waxaan ku dhilahay sheekadan hala joojiyo fidmadan cabdirashiid wada hala joojiyo wajiga ama kaaga sii dhimanahay ma maqli ninba beertu qardeysta buu goosan ninba shaambadu tabcada u qaadan aadan bare ducaale hooyo walba way xambaarsan go'a ku xiran dabarkeed waxa ku buufisan aadan bare ducaale waa kala wada rucleynay abri way kala dhumayaan ilmaha baasiriga ilaahay baa mahad iskala allah barakee dhibkii Soomaalida ummadda Nabi Maxamed u imaado wixii jiran isbitaal yaalo wiilka meel xun yaalo oo maxay ama biriis ahad ama maxay wax kale ahaado asaga gacanta saa u haya ninkaas waa nin ogaadeen afsame waa nin Soomaali Maxamed ninka islaamka saa u xoojinayo oo diinta saa u garab taagan oo madrasooyinka saa u garab taagan oo culimo diinta saa u taageeray oo masaajidaha wax walba ka bixinay oo nalka iyo biyaha ku shubahaya kulli cadowgaada Allah jabiyo annaka oo walba meel ay joogto waa lagu soo duceeyni ducaale embiga inuu la yiraaha aadan barre ducaale aan ka codsanayno anigoo hadalka aad aan u sii dheereynaynin dhaar horena u sheegnay ayaantan ayaan ka horeysay aan aad ugu sheegnay haddana ku celinayno si degdeg ah dawladda iyo asaga oo iswataan in wax nagala qabto oo dadkaas uuna soo gaarin haddii dadkaan nagala qaban waayo labadaa beelood inuu dhib dhex yaallo aad inuu dhib fara badan inuu dhex yaallo oo loo nogala imaaday taana riifa meel la yiraa nugulana dhibahayo beeraha nagi annaga aan lehen waxaa jirtaa dad aan beeraha waxba ku lahayn oo waatada ka dambeeya dadka boonta liiraha ka dambeeya
oo markii anaga aan hadlan lahayn ama MPyaasha ama madaxda aan arinta u sheegan lahayn dhahayo maxaad u sheeganaysiin dhahay sida aawadeed waxaan u baahanahay anaga dad laba shacib baan nahay hadhow wax baa meesha dhib baa ka imaan doono intuu dhibka ka imaanin inay dawladdu wax nagala qabato MPga wax nagala qabto nin allana ninka wax nagala qabto MPga wax ka codsanayna waliba in badan ka cabsanayna inuu wax nooga qabto si kastaba ha ahaatee waxaa caado ka noqotay dowladani ismaamulka Garissa shakhs walba oo dowladda daliil u soo jeediyay in shaqada laga joojiyo.